hadallada qosol kale ee Robert Mugabe laga hayo waxaa ka mid ah musaaricadu waa wax lagu qoslo waa meel ay joogaan niman u dagaalamaya suun iyaga oo aan sidanin surwaalba gabadh ka dheer haddii aad damacdo inaad dhunkato waa sidii adiga oo doonaya inaad tuushka biyo ka cabto waa nacbahay wiilasha aan baabuurka wadan waxaa sidaas tiri gabadh aan xataa baaskeel wadan Afrika waa meesha qura ee gabadh ka soo amaanaysatay saaxiibadeed ay la kulmayso wiil qolka amaanaystay saaxiibkii waxaan ogaaday in Afrika ay ka wanaagsan tahay Yurub markaan ka waayay gidaar aan kaadi isla taagaba haddaad aragto lamaane Afrikaana oo xaafadda horteeda ku leedsanaya ha u marayn jacayl ee korontadii ayaa ka tagtay haddii aad aragto nin xaaskiisa marka uu gaadhiga joojiyo inta uu soo dego daaqadda gaadhiga ka furaya kama aha jacayl ama gaadhiga ayaa cusub ama gabadha ayaa cusub markay gabadhu dhegaysato qalbigeeda in ka badan inta ay dhegaysanayso caloosheeda waxay awoodaysaa in kuwa baagamuudo ah oo aan shilin haysan ay xidhiidh la samayso haddii la xidho meheradaha lagu gado maykaabka carruur badan ayaan hooyooyinkooda aqoonsadeen inaad gabdho badan xidhiidh la samaysaa waa qaab aad ku dawaaqinayso oo ku khalkhalinayso cadowgaaga si aanay gaar ugu bartilmaameedsan midhaada yar ee gacalisadaada ah balse dumarku siyaasaddaas iyo istiraatiijiyaddaas ma fahmayaan aroosku waa meel ay isugu yimaadaan dad badan oo laba ka mid ahina ay ka fekerayaan galmo inta soo hadhayna cunto dumarku waxay khiyaamaan militariga jiidda jooga ee bambooyinka iyo hubka culus sita sidee ayaad ugu maraysay adiga oo laabtoob sita inaanay ku khiyaami karin musuqmaasuqu waxa uu ka bilaabmaa marka aad ka qaado ilmahaaga lacagta ay siiyaan dadka idin soo booqday adiga oo ka sasabanaya wiilka aad la sheekaysato markaad barayso saaxiibadaha waa sidii adiga oo waraabe tusaya dhowr nooc oo kala duwan oo hilib ah oo marliiba isagu wada cunaya hilibka waalidka Afrikaanku waa kuwa qura ee inta ay ku dhangadeeyaan kadibna ku weydiinaya sababta aad la ooyeyso walaashay waxaa tahay 35 jir haddana wiilasha kula soo hadla ayaad ku leedahay xagaad ka soo heshay nambarkayga ee iska sug calafkaaga markaad xiriirka khaaska ah iyo qofka aad la sheekaysato aad ku faafiso baraha bulshada dadku waxay sugayaan xilligaad kala hadhaysaan in ka badan inta ay sugayaan imaanshaha iyo soo laabashada Nabi Ciise aynu dumarka u sheegno xaqiiqade marka la leeyahay nin kasta oo guul gaadhaba gabadh ayaa ka dambaysa ma aha ta uu la sheekaysto ee waa hooyadii haddii aan soo dhigo bartayda inaan joogo Dubai oo aad kadib igu aragto magaalada aniga oo kula jooga iska aamul labadeenuba Dubai ayaynu wada joognaaye